waayahay Ronaldo ayaa goostay in uu ka tago kooxda Real Madrid kadib markii uu noqon waayay ninka ugu mushaarka badan kubadda cagta dunida. waxaa loogu yaboohay 25 milyan oo euro sanadkii ama xitaa 30 milyan oo canshuurtu ay la socoto, balse laacibkan ayaa ku fashilmay in uu la silmo Lionel Messi oo uu kaga sara maro mushaar ahaan kadib dhammaadkii 2017-2018. wuxuu goostay inuu sanadkaas uu noqdo midkiisii ugu dambeeyey ee kooxda Los Blancos. markii go'aanka uu bixitaanka uu soo baxay, wuxuu halka uu aadayo kala tashaday wakiilkiisa Jorge Mendes, isagoo ku adkaystay in uu ka tegayo Florentino Perez iyo kooxdiisa Madrid. laacibkan ayaana ka go'aamiyey in lagu iibiyo 100 milyan oo lacagta Yurub ah ugu dambayntii, sida uu warinayo wargeyska El Mundo Deportivo. dalabkii ugu horreeyey ee Ronaldo waxaa laga helay magaalada Milano ee dalka Talyaaniga, gaar ahaan kooxda kubadda cagta iyo AC Milan oo doonaysay inay la wareegto ciyaaryahankaasi. Lee Yahung oo ahaa guddoomiyaha markaasi kooxda AC Milan wuxuu sheegay inuu bixinayo lacag dhan 150 milyan si uu uga mid noqdo kooxda, inkastoo Ronaldo uu caddeeyey in uusan doonayn Rossoneri sababtoo ah sanadihii dambe kuma aysan jirin waayo wanaagsan iyo koobka Champions League midna. Manchester United ayaa sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee mustaqbalka laacibkan kala hadasha Real Madrid, inkastoo uu goostay inuusan dib ugu laaban garoonka Old Trafford. wuxuuna yidhi waxqabadka wanaagsan ee Juve ee sanadihii dambe soo gaaraysay kama dambaysta koobka ugu wanaagsan ee Champions League iyo ku guuleysiga horyaalka ayaan u doortay. ciyaaryahanka ayaa sidoo kale caddeeyey inuu diiday dalab rasmi ah oo kaga yimid kooxda kubadda cagta ee PSG, kooxdaasi oo doonaysay inay la wareegto xiddigan u dhashay dalka Boortaqiiska. Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale wargeyska Mundo Deportivo waxa uu soo bandhigay in ciyaaryahankaasi uu sababta ugu weyn ee uga tegay horyaalka dalkaasi Spain ay tahay canshuuraadka dhibaatooyinka ku noqday ciyaaryahanka, waxaana uu sheegay in dhowr jeer maxkamad looga yeeray. ciyaaryahanka ayaa isugu yeeray ninka wakiilka ka ah oo sidoo kale la taliyayaashiisa, waxaana uu kala hadlay sidii uu uga guuri lahaa dalka Spain sanadkii 2017, waxaana uu ka gadoodsanaa in canshuur lagu soo rogo adag ciyaartooygaasi islamarkaana maxkamad loogu yeero. Ronaldo ayaa u arkayay in sharafkiisa hoos loo dhigayo maadaama dhowr jeer maxkamad looga yeeray. Cristiano Ronaldo ayaa la taliyayaashiisa waxa uu u sheegay in ay ka soo fikiraan halka ugu wanaagsan ee uu u wareegi lahaa, waxaana ciyaartooygan lagu xukumay inuu bixiyo lacag gaaraysa 14 milyan oo lacagta Yuruba. markaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga tago. Ronaldo ayaa dhowr jeer waxa uu sheegay inuu ku wareeray qaabka canshuurta loo bixiyo dalka Spain. Ingiriiska ayaan joogay ayuu yiri wax badan weligayna canshuur la iskuma qabsan, waxaana ay si toos uga go'aysay lacagtayda iyo akoonkayga canshuuraadka la igu leeyahay. wax qalalaasa iyo dhibaato ahna marna iskagama inaan hor imaan dawladda Ingiriiska. Spain dawladeedu waa mid ka duwan dawladaha kale ayuu yiri Cristiano Ronaldo, mana ahan meel lagu sii noolaan karo. sababta ugu weyn ee uga tagay kooxdaasna waxa lagu tilmaamay inay taasi tahay